asalaamu calaykum maqaarta meel walba joogtiin oo mar kale muuqaal cusub aan ku eegi doono wararkii ugu dambeeyay kubadda cagta iyo wax walba oo ka cusub suuqa kala iibsiga. Inter Milan ayaa markaan la seexatay Juan Cuadrado oo uga imaanaya Juventus si free hal sano qandaraas ayayna la gaareen. kooxda Al Nassr ayaa markaan wadahadalo kula jirto Sadio Mane iyo Bayern Munich. Barcelona ayaa markaan daneynaysa inay isku bedeshaan iyaga iyo Manchester City. De Jong iyo laacibka reer Portugal ee Bernardo Silva oo labada kooxood markaan waxay rabaanba labadan in la isku ababgareeyo. Morata oo u dhaqaaqay dhinaca Rome xilli oo halka heshiis uu la gaaray. Paris Saint-Germain ayaa markaan RB Leipzig loola adag kala kulmaysa Xavi Simon. Chelsea ayaa markaan si rasmi ah ula wareegtay Gabriel Angelo laacibka la yiraahdo. Arsenal waxay u duuleen dhinaca iyo Mareykanka iyaga iyo laacibkooda cusub Declan Rice. Manchester United ayaa kabtanimada ka xayuubisay Harry Maguire xilli Al Hilal Saudi ee markaan Al Ahli Saudi ee markaan dhameystirayaan Riyad Mahrez. haddii aan muuqaalka heshaan oo la garay kana subscribe noo saara. haddii aanu ku bilownana wararka ugu waaweyn suuqa kala iibsiga, kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa markaas si rasmi ula wareegtay da'yar Brazil ugu yimid ee lagu magacaabo Angelo Gabriel. ninkan ayay ku qaatay 15 milyan lacag gaaraya. Chelsea ayaa ninkan isbuucan la seexatay heshiis dheer oo 2029 dhinaca iyo sare u sii dhaafaya. laacibkan haatan wuxuu tijaabada caafimaad ka gudbay marka wuxuuna u duulay Mareykanka soo kooxdiisa halka uu la mid noqdo. Nextina wuxuu amaha ugu wareegi doonaa kooxda Sterback lagu magacaabo. marka Chelsea heshiiskaas ayay dhameystiraan. haatan warbixin oo rasmiya ee haatan waa wararka ugu dambeeyay war ka mid ah laacibka reer Ecuador Juventusna ka tirsanay markaan ugu dambeyn uu macsalaameeyay Inter ayuuna ku biiray. laacibka Juan Cuadrado ugu dambeyn wuxuu ku biiray Inter Milan qandaraas hal sano ah ayuuna la gaaray nimanka Inter Milan. marka Juan Cuadrado dagaal dheer kadib nimankan uu cadaawad weyn u qabay markaan wuxuu xiranayaa maaliyadda Inter Milan ee bluega iyo madowga iskugu jirto isagoo ka soo shaar bedelanaya madowga iyo cadaanka Oli Lady. markaana magaalada Milan ayuu u soo dhaqaaqayaa. laacibka lagu magacaabo Juan Cuadrado si free ayuuna ugu biiray Inter Milan. dhinaca Sacuudiga markaan haddii eegnana kooxda Al Nassr ayaa markaan wadahadal la furtayba Sadio Mane iyo Bayern Munich. Bayern Munich way shaaciyeen inay iibinayaan laacibka reer Senegal Sadio Mane. marka Al Nassr ayaa wajaab soo booday ninkaana sheeda kala socday arrimihiisa. marka Mane wadahadalo ayuu kula jiraa kooxda kubadda cagta ee Al Nassr. marka wadahadalo waxaa laleeyahay meel fiican ayay marayaan oo labada dhinaca. marka Al Nassr waxay rabaan ninkan inay Sacuudiga geeyaan ee ka garab ciyaarsiinaan Brozovic iyo Ronaldo iyo Talisca iyo xidigooda kale inay kula mideeyaan ayay rabaan dhanka Sacuudiga. marka Sadio Mane shandidiisa inuu ka xirxirto Yurub ayaa markaan u badanaysayo lacagta carabta cidiidi karta ma lahanba. markaan waxaan eegaynaa Barcelona iyo Manchester City. kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa waxay doonayaan laacibka reer Holland ee Frenkie de Jong inay qayb uga dhigaan la soo saxiixashada Bernardo Silva. Barcelona ayaa muddo 12 bilood waxay rabaan inay ninkan ka diraan kooxda, laakiin arintu way suurtagali lahayd. De Jong asiga ayaa meesha ku dhagan oo ma baxayo warbax ma baxay. marka arintaas ay Barcelona iyo De Jong wada haysto. Manchester City ayaa ninkan ayaanta la xiriirinayay laacibka Frenkie de Jong. Barcelona midda ay wajaanis ka dhex aragtay waxay tiri maadaama Ma City ninkan u baahan tahay anaguna Bernardo u baahana. Ma City ninkan lacago 100 milyan ayay ku rabaan Bernardo Silva. marka labada dhinacba markaan Barcelona waxay diyaar u tahay labadan in la isku bedesho, laakiin Man City mawduucaas iyada kuma jirto. laakiin laacibkan haddii 100 milyan laga siisanayo way dhiibayaan. dhanka Sacuudigana laacibkan kooxda kubadda cagta ee nimanka Al Hilal la yiraahdo ayaa ninka Bernardo raba. marka arrimuhu way isku yar xirxirayeen. marka Barcelona balankan ay soo dejiyeen waxay taageen war ninkan De Jong qaata ninkan nasiya lacag xataa 30 milyan oo kugu sii dareena. marka wixii ka soo kordha waan arki doonaa. dhinaca kale tan kooxda kubadda cagta Rome ayaa heshiis shakhsi la gaartay Alvaro Morata. waxaa la xiriirinayay kooxda kubadda cagta AC Milan inuu ku biirayo arintii, laakiin Jose Mourinho ayaa dabagadiyo madaxii lugaha urugay lugihiina korgeeyay. marka Atletico Madrid ninka uu ka soo dhaqaajinaya waxaa dhiman kaliya in la isfahmo. Moratana si rasmi ugu biiro kooxda kubadda cagta AS Roma. macallin Jose Mourinho ayaa meesha ku sugan oo wax badan ayuu isku aadisanayaa. ninkan
waa macalin iska jamhadeynayo rag fara badan ayuu soo saaranayaayo wuxuu leeyahay xaniyey ayaa koraya Rome waxaa lagaga dhigay wax kale markaana Paris Saint-Germain iyo umuuraheeda haddii aan laacibka lagu magacaabo Xavi Simons oo ka tirsan kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo PSV Eindhoven oo hogaamiyo Fred van Nistelrooy marka Paris waxay rabaan laacibkooda da'da yar inay dib u ceshtaan oo maadaama nimanka Paris laacibkan oo hore ayaga u soo goteen oo akademiyada Lames ee Barcelona ay ka keeneen marka waxay rabaan laacibka inay dib u soo ceshtaan walow la leeyahay warar haatan soo baxaya kooxda kubadda cagta ee RB Leipzig ayaa ka dulqaadayso Paris Saint-Germain dhinacaas iyo halka ay u aadayaan marka Parisna laacibkan ay rabaan inay soo qaataan markan waxaan eegaynaa umuuraha Manchester United gaar ahaan xilka qaadistii Harry Maguire ugu dambeyn shir maalmo socday labada dhinac ay wada fadhiyeen Maguire iyo macalinka waxaa lagu go'aamiyay in Maguire kabtanimada laga qaado marka Manchester United way xaqiijiyeen in kabtanka Manchester United laga wareejiyay Harry Maguire ninkan Leicester City ayuu ugu soo biray lacag waaliya waana daafac ugu qaalisan kubadda cagta xilliga la joogo odagu marka madax xanuun iyo kursi keed iyo caay iyo si loola daba joogay kabtanimadana waa laga wareejiyay markaan waxaa la yiri warar kabtankaada ma ogiye bal meesha ka soo bal marka waxaa laga yaabaa xataa wararka qaar ay sheegay inuu Maguire kooxda iskaga baxo oo isla koox Premier League oo ku biiro marka arrintaana waa arrin kale dhinaca kale tana Arsenal ayaa u duusha Mareykanka iyaga oo saxiyadooda cusubna ee hore u sii raacin siiba ninka ugu muhiimsan waa Declan Rice marka Gunners-ka kulamada ee Mareykanka ku soo ciyaari doonto ninkii Rice iyo wixii dhan way wada yaaceen marka dhinaca Mareykanka ayaa loo safray haddii aan muuqaalka heshaan wala gare kanalka subscribe nasara goodbye